السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran channelka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta waa Arbaco waana 17 bisha December ee 12 sanadka 2025. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago howlgallada ciidamada ICE ay toddobaadkii saddexaad ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul oo saameyn xoogan ku yeeshay ganacsiyada yaryar ee ku yaala magaalada Minneapolis isu socodkii dadweynaha iyo waliba goobihii cibaadada oo dadku ay ka baqayaan inay tagaan. Arrintaasi waxaa shalay shir jaraa'id ka qabtay qaar ka mid ah hogaamiyaasha diimaha ganacsatada dadka Latinoga, maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey iyo taliyaha booliska Brian O'Hara. Shirkooda jaraa'id maxay ku sheegeen ayaan idinku la wadaagayaa. Sidoo kale madaxweyne Trump oo kordhiyay wadamada travel bank uu ku soo rogay oo markii hore 19 ahaa haddana uu 20 dheeraad ah ku daray oo 39 uu ka dhigay. haddaba maxay yihiin wadamada kale ee shalay dib looga darayna waan idin la wadaagayaa, balse marka hore soo dhawaada. Umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana ka mid ah adeegyadaas: 1. hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada. 2. gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka. 3. baridda qaabka loo guto acmaasha umrada. 4. umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin. 5. haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha. haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona. wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 966545928475. mahadsanidin. waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online uu ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada. maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah Qur'aanka, hikaada, axaadiista, ducooyinka, tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha, tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada. qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashadaada aad ku qaadanaysan. waxaanad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda. Howlgallada ciidamada ICE ay toddobaadkii saddexaad ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis waxay saameyn xoogan ku yeesheen ganacsigaas, gaar ahaan ganacsiyada yaryar ee ku yaala East Lake Street iyo waliba suuqa Karameel oo qayb ka ah oo Soomaalida suuqa ugu weyn ay ku leedahay magaalada Minneapolis ah. xitaa dadkii muwaadiniinta ahaa waxay ka baqayaan in dukaamadoodii ay furaan, waa iska xiran yihiin, isla markaana isjiijiid ma geli karna ayay leeyihiin. marka arrintaasi waxay sidoo kale saameyn ku yeelatay goobihii cibaadada sida masaajidda oo kale. Soomaalidu waa dad diintooda ku adag oo masaajidda 5 salaadood ku tukan jiray, laakiin hadda masaajidadii waa faaruq sida dad reer Minneapolis oo aan la xiriiray ay ii sheegayaan sababo la xiriira cabsidaasi. waxaa sidoo kale jirta kaniisadihii sidaas oo kale dadka Latinoga inay tagi laayihiin. ICE waxa ay si toos ah u bartilmaameedsanayaan dadka Soomaalida iyo dadka Latinoga ah sida aad ka arki doontaan oo maayarka magaalada Minneapolis uu sheegayo. marka arrintaasi in dadka xitaa guryahoodii ay ka soo bixi waayaan, maqaayadihii cunto u doonan waayaan, dukaamadii dhar ka soo gadan waayaan ayay maraysaa. xitaa kuwii muwaadiniinta ahaa ayaa cabsanaya. maayarku waxa uu leeyahay dadku albaabkooda xitaa in ay furaan ayay ka baqayaan, gudaha ayay ku jiraan. qaar ka mid ah kaniisadaha waxaan arkayay iyagoo dadka cuntadii guryahooda ugu geynaya, gaar ahaan dadka Latinoga ah. Soomaalida xoogaa intaas waa ka madax adag yihiin oo lagama yaabo inay cabsaas u cabsadaan, laakiin dadka Latinoga guryahoodii ayay ka soo bixi laayihiin. xitaa taliyaha booliska waxa uu meesha ku soo bandhigay booliskan oo aragtaan oo community gu adeega. marka wuxuu yiri dadkaasi Latinoga ah marka ay kaniisaduhu cuntada ay u diyaariyaan, booliskan ayaa guryahooda ugu geynaya oo community-ga inay u adeegaan loogu talagalay ama bulshada. marka arrintaasi shalay waxaa shir jaraa'id qabtay marka maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey, taliyaha booliska Minneapolis Brian O'Hara, hogaamiyaasha diimaha Latinoga iyo sidoo kalena kuwa iyaguna ganacsiyada yaryar leh. waxaanay ka cabanayaan oo ay leeyihiin maqaayadihii wax imaanaya ma jiraan. maqaayadaha qaarkood East Lake ku yaala waa ay xiran yihiin, kuwana waa ay furan yihiin oo xitaa wax u imaanayaba ma jiraan. sidaas darteed waxa maayarka magaaladu uu yiri waa in aan taageernaa ganacsiyada maxaa yeelay kiradii iyo korontadiiba iskama bixin karaan haddii ay sii xirnaadaan. arrintan saameyn xoogan ayay ku yeelanaysaa. marka bulshada Latinoga ee shirka jaraa'id ka hadashay waxay yiraahdeen waa inaad ka fikirtaa marka aad tufaax ka soo gadato
dukaanka in qof latinoga uu tufaaxan soo gooyo sidaan ognahay dadka Latin America ka yimid ayaa beeraha wadankan ka shaqeeya labada qaybood ee constructionka oo dhismaha iyo beerahaba dadka latinoga ayaa u badan oo iyagu ka shaqeeya oo beeraha soo gura isla markaana cuntada dadku ay cunayaan soo gaarsiiyay marka arrintaasi ka fikir ayuu yiri maayarka magaalada Minneapolis oo ka hadlayay marka shirka jaraa'id ayaa waxa uu sheegay in arrintan howlgalkan ciidamada ICE ay ka wadaan Minneapolis iyo St. Paul saameyn xoogan uu ku yeelanayo ganacsiyada yaryara marka waxa uu yiri inta badan waxaan maqlayay madaxweyne Trump dadka amaba ganacsiga sidaas darteed waa uu ka taxadiraa laakiin hadda sida muuqata arrintan waxay tahay mid saameyn xoogan ku leh ganacsatada yaryareed oo aysan awoodin in xitaa kiradii ay iska bixiyaan meelaha ay ku jiraan amaba korontadii ay iska bixiyaan waxa uu sheegay howlgalkan inuu yahay mid lagu bartilmaameedsanayo oo lagu faquuqayo Soomaalida iyo dadka Latinoga oo leh Soomaali ma tahay lamase Latino ma tahay marka waxa uu sheegay arrintan in aysan ahayn arrin loo dul qaadan karo sida darteedna waxa uu dadka ugu baaqay in ganacsiyada ay tagaan isla markaana ay taageeraan isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri This Trump administration is causing chaos and fear in our communities where we should be building trust. We have Latino community members that are terrified to go outside, to go to the grocery store, to attend church, simply to open up the door to their home because they're concerned about their safety. People in our Latino community should be comfortable calling the police. They should be comfortable shopping for food. Indeed, they have made Minneapolis a better place through their hard work and their entrepreneurship. And because of this, because of their fear to go outside and patron small and local businesses throughout our city, these businesses and our economy is then suffering. The consequences of these hateful immigration policies have a ripple effect. What it means is that fewer people in our city are going outside to patron these small and local businesses. These business owners are having to shut their doors. They're losing tons of money because they are not able to pay the rent and keep the lights on. The impact is to the economy. I've heard and again that the Trump administration cares about business. Well, in this case, business is suffering. Business is suffering because of these horrible immigration policies where even Latino American citizens don't feel comfortable going outside because here's the thing. They're discriminating only to the sense of are you Latino or are you Somali? Once it's been established that you're Latino or Somali, or the detainments that we're seeing right now are entirely indiscriminate. sidoo kale maayarka magaalada Minneapolis ayaa baaq waxa uu jeediyay dadka degan Minneapolis waxa uu yiri soo baxa isla markaana taageera ganacsiyada yaryar waa ay u qalmaan in la taageero waxa uu yiri bax cunto soo iibso dhar soo gado marka waa in la taageero ayuu yiri ganacsiyada yaryar maxaa yeelay ganacsiga magaalada Minneapolis ayaa ku tiirsan iyo kobaca dhaqaalaha marka baaqaasi ayaa dadka degan Minneapolis uu jeediyay My ask to the people of Minneapolis, to everyone, go patron these small and local businesses. The ask is about as easy of an ask I could possibly make. Go over to East Lake Street, buy a beautiful dress, get some incredible food, buy some tamales and some tacos, go get yourself some insurance, go shop at a Latino or a Somali-owned business. Go patron these small and local businesses. The ask is about as easy of an ask I could possibly make. Go over to East Lake Street, buy a beautiful dress, get some incredible food, buy some tamales and some tacos, go get yourself some insurance, go shop at a Latino or a Somali-owned business, go patron some of these immigrant-owned businesses that have helped make Minneapolis a better place and that have added so beautiful to the cultural fabric of who we are. These businesses are suffering right now, and right now they deserve our support. dhinaca kale taliyaha booliska Brian O'Hara isaguna shalay shirka jaraa'id ka hadlayay ayaa waxa uu yiri marka aad marto yiri East Lake Street waxaad arkaysaa inta badan goobaha ganacsiga oo xiran ama sidoo kale furan laakiin cidlaha oo dadaysan joogin arrintaasina waxa uu yiri cabsida ayaa keenaysa ciidamadan ICE ay ku abuureen dadka degan Minneapolis iyo St. Paul marka waxa uu yiri boolisku waxay u taagan yihiin in sharafta qof kasta oo degan magaalada Minneapolis aan la dhibaataynin waxana uu sheegay in booliska
aysan la shaqaynaynin ciidamadan howlgallada wada isla markaana aysan weydiinaynin muwaadiniinta Minneapolis in uu wadanka sharci ku joogo ama inuusan sharci uusan lahayn sidaas darteed wuxuu yiri ha ka cabsanina inaad soo wacdaan marka aad noo baahataan isla markaana ha u malaynina haddii aad soo wacdaan in aanan idin imaanaynin sidaas darteed wuxuu yiri waa inaad nala soo xiriirtaan isla markaana markasta oo dhibaato aad aragtaan nala soo xiriirtaan annagu adinka ayaan idin shaqeynaa waa kan taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis Brian O'Hara oo arrimahaasi ka hadlay. This has been a very, very difficult time for our communities here in the city. The fear that people are experiencing is real. As our mayor has said, it's been sad to drive down Lake Street and to see so many of our businesses either closed or empty. It's hard to see the impact that this is having on everyone in our community. So my goal and our goal as the Minneapolis Police is to try and do what we can to reduce fear, to reduce anxiety, and to try and help provide for public safety and uphold human dignity in our city. The Minneapolis Police Department is committed to honoring the human dignity of every person in our community. The Minneapolis Police Department does not participate in immigration enforcement. We do not care and do not ask people about immigration status. People in our community need to know that they can feel confident that when they need help, they can call 911 and we will show up for everyone and not be afraid to call because they think we might turn them over for some civil immigration violation. That's not our job. Our mission is to keep everyone in this town safe. And we cannot accomplish that if a huge segment of this community is too scared to call us when they need help, because that makes everyone less safe. dhinaca kale maamulka madaxweyne Trump ayaa shalay waxay kordhiyeen wadamada travel banka lagu soo rogay aan loo galeyn dadkooda inay Mareykanka imaadaan 24kii bishii hore markii nin Afghanistan ka yimid laba askari uu ku dhaawacay caasimadda Washington DC waa kii madaxweyne Trump 19 wadan oo wadamada tabaqada saddexaad travel bank ku soo rogay dadkooda inaysan Mareykanka imaan karin sidaas darteed shalay waxa uu ku kordhiyay 20 wadan oo kale sidaas waxay ku noqonayaan 39 wadan oo xayiraad dadkooda laga saarayo in ay Mareykanka imaadaan wadamada cusub ee shalay si buuxda loogu soo rogay xayiraad dadkooda inaysan wadanka soo gali karin ayaa waxa kamid ah Burkina Faso Mali Niger inta badanna wadamo Afrikaan ah ay u badan yihiin South Sudan sidoo kale waxa kamid ah Syria mas'uuliyiinta Falastiiniyiintana waa lagu soo rogay sidoo kale iyaguna inaysan soo gali karin dalka Mareykanka waxa sidoo kale kamid ah wadamada kale oo iyaguna si qayb ahaan xayiraad loogu soo rogay oo wadanka la xadidayo in shakhsiyaadka ka socda ay soo gali karaan waa 15 wadan waxana wadamadaasi yihiin kuwa horay liiskan aan ugu jirin waxana kamid ah Angola waa Antigua Barbuda waa Benin Dominican Republic Gabon Gambia Ivory Coast Malawi Mauritania Nigeria Senegal Tanzania Tonga Zambia iyo waliba Zimbabwe iyaguna 15kaasi wadan qayb ahaan xayiraad ayaa lagu soo rogay dadkoodu inaysan imaan karin waxa sidoo kale jirta in la kordhinayo sidoo kalena xanibaada saaran dadka ka imaanaya laba wadan oo ah Laos iyo waliba Sierra Leone marka xayiraadan ma saameynayso dadka green card ka leh wadankan oo lawful permanent residents ama dadka haysta viisayaal oo iyagu viisayaashaasi noocyadooda kala duwan loo siiyay inay Mareykanka imaadaan sida dadka ciyaaraha adduunka ka soo qayb galay ama tartamo kale oo ciyaarado kala duwan ka qayb galay ama diblomaasiyiinta kuma jirto dadka green card ka haystana kuma jiraan oo Mareykanka waa ay imaan karaan waxaan ogeyn horay in 12 wadan oo Trump bishii June waxa yiraahdo ugu soo rogo Soomaaliya ay kamid tahay isla markaana hadda waa la kordhiyay wadamadaas waxa la gaarsiiyay 39 wadan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo